halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 5 galabnimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo bogga internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa galabnimo khamiis ah 2 bisha July ee sanadka 2020 barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaa idin la socodsiin doona qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah aaska fanaankii caanka ahaa ee dalka Itoobiya ee la dilay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya oo ka digtay xiriirka u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan hadaba maxaa lagu tilmaami karaa talaabadan ay Somaliland qaaday والله runtii talaabadan ay Soomaaliland qaaday waa talaabo aad u dhiiran waxaana hubaal ah inay Soomaaliland marka horeba sii filanaysay ama ka sii diyaar garowday talaabo ka iman karsa dhinaca China waayo waxa weeyaan China mar walba ma saxashado ama ma fududeysto arrimaha Taiwan shirkadda lacagaha xawisha ee World Remit oo ku dhawaaqday daahfurka adeegeeda xawaaladeed ee Soomaaliya hadaba halkee bay ka bilaabayaan Soomaaliya oo dhan baan ka bilaabaynaa oo laga heli karaa oo waxaana lacagta laga qaadan doonaa xarumaha dahabshiil oo in ka badan 200 laamood ku leh Soomaaliya hay-adda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in mas'uuliyiinta Djibouti looga baahan yahay inay si dhexdhexaad ah u baaraan eedeymaha sheegaya in si xun loola dhaqmay duuliye u xiran dawladdaasi sidoo kale waxaan idin hayaa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha waliba midu dumar calmaday way cudun sahay ama taqadan xuriyon awabaastayo waxa jacaano jacayl malaha ceebale qodobadaas oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan barnaamijkan oo ay wada jir u soo saareen Cabdiraxmaan Cali Dambiil iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali marka hore barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxay noo haysaa Fartuun Ismaaciil oo gurigeeda joogta Fartuun mahadsanid Kawthar waxaa dalka Itoobiya maanta lagu aasay heesaagii ka soo jeeday qowmiyadda Oromada ee Hajalu Handesa kaasoo ay dileen rag hubaysan oo aan la garanayn ayaa waxaa dilkiisa ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof xiisada qowmiyadeed iyo mid diimeed ayaa ka soo xoogeystay dalkaasi dilka heesaaga kadib iyadoo booliisku ay xireen dad badan oo ay ka mid yihiin ninka mucaaradka ee sida aadka loo yaqaan ee Jawaar Maxamed iyo wariye Iskandar Nega maalintii shalay ahayd ayaa magaalada Addis Ababa waxaa qalalaasaha socdo ku dhintay 8 qof iyadoo halkaasina ay amaba ka dhaceen qaraxyo ciidamo badan ayaa la geeyay wadooyinka halkaasi oo ay ka soo baxeen warar sheegaya in burcad hubaysan ay bartilmaameedsanayaan qowmiyadaha iska soo horjeeda Shiinaha ayaa gadaal ka riixaya dhaleecaynta caalamiga ah ee ku aadan sharciga siinaya inuu si weyn u maamulo nolosha Hong Kong waxa ay ku hanjabtay talaabo looga hortagayo Ingiriiska kadib markii London ay 3 milyan oo reer Hong Kong ah ay u ballan qaaday inay dhalasho siinayso afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo ku sugan magaalada Beijing ayaa sidoo kale Mareykanka u sheegay inuu joojiyo faragelinta arrimaha Hong Kong aqalka wakiilada Mareykanka ayaa si wada jir ah u meelmariyay cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogo kooxaha wiiqaya madax banaanida Hong Kong marsiisayna ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dalkiisa uu ka fiirsanayo soo jeedino uu magangeliyo ku siinayo dadka ka imanaya Hong Kong kadib markii Beijing ay soo rogtay sharci cusub oo dhanka amniga ah haddaba mid ka mid ah shacabka reer Hong Kong oo BBC-da ay la hadashay ayaa ka waramaysa dareenkeeda ku aadan arrimahan waan danaynayaa inay UK aado sababtoo ah haatan waan ka shaqayn karaa halkaas oo xirfadayda way dhammaystiran tahay haddii aan u qalmo inay shaqaalaysiiyaan halkaas waan u aadi karaa shaqo sida aan horey u sheegayba weli go'aano kale waan gaari karaa oo ku aadan aadidda UK balse haatan halkan ayaan joogaa
dadaalo badbaadin ah ayaa ka socda waqooyiga Myanmar halkaasi oo daadad dhoobo iyo biyo iswata ay ku shubmayaan meel macdanta laga qodo oo dalkaasi ku taala taasoo inta la og yahay ay ku dhinteen in ka badan 100 qof dad intaasi ka badan ayaa loo maleynayaa in lagu laayahay dhul go'a ka dhacay goobtaasi booliiska dalkaasi ayaa sheegaya in dadka ay uga digayaan in ay ka fogaadaan goobta xilliyada roobabka xooggan ay da'ayaan warshadaha macdanta ee Myanmar ayaa sanadkiiba soo saara lacag gaaraysa balaayiin dollar balse leh khatar daran iyadoo aan si wanaagsan loo nidaamin sanadkii 2015 ayaa dhacdo tan la mid ah ay ka dhacday gobolka Kachin waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof maxkamad ku taala dalka Ingiriiska ayaa soo saartay xukun ka dhan ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro oo ku aadan muran kala dhaxeeya ninka ay xifaaltamaan ee Juan Guaido oo ah lacag ka badan 1 bilyan oo dollar oo dahabka Venezuela ah oo uu hayo bangiga Ingiriiska maxkamadda sare ee London ayaa sheegtay in gundhiga go'aankeeda uu yahay in dawladda Ingiriiska ay si aan shaki ku jirin u aqoonsatay Mr Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Venezuela sanadkii la soo dhaafay kadib doorashadii lagu murmay bangiga dhexe ee Venezuela ayaa sheegaya inuu u baahan yahay shacabka ama dahabka si loogu maalgeliyo dadaalka lagula jiro cudurka safamarka ee COVID-19 ugu dambeynna warbixino cusub oo caabuqa ka dhashay cudurka coronavirus ah oo laga soo sheegayo dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay kor u dhaafay 50,000 oo xaaladood taasoo gobolka California oo kaliya maalin ka hore laga diiwaan geliyay tiro ku dhow 10,000 oo xaaladood gudoomiyaha gobolkaasi ayaa mar kale soo saaray tallaabooyin xayiraada ah warkii dunidana waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo stuudiyaha iyo qaybaha kale ee barnaamijka aad bay u mahadsantahay Fartuun Ismaaciil ayay ahayd oo inala socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC-da markana qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta galab wanaagsan mar kale dhageystayaal aynu ku bilaabnay ee waxaa maanta magaalada Ambo ee galbeedka magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya lagu aasay fanaankii caanka ahaa ee la dilay iyadoo amnigana aad loo adkeeyay fanaanka ayaa la toogtay xaddii la soo dhaafay dilkiisuna waxaa ka dhashay dibadbaxyo ballaaran ee gudaha dalka Itoobiya dibadbaxyadaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa la socday wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya haatanna stuudiyaha igu weheliya Cabdiqaadir Kowsar garoonka Ambo oo qiyaastii 100 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa ayaa lagu qabtay aaska fanaanka Hachalu Hundessa balse garoonka ayaanan buuxin iyadoo dad badan ay guryahooda iska joogeen waxaa jira warar sheegaya in dadkii ka soo qayb galay Brodiqa isku dayeen inay hor istaagaan aaska Hachalu tan iyo inta laga soo daynayo Jawaar Maxamed balse taasi uma aysan suuragelin markii sanduuqii uu ku jiray Hundassu ayaa dad badan waxa ay ku qaylinayeen ama ay ku barordiiqayeen halkaasi amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyay kadib maalmo ay khalalaaso harayeen halkaasi waxaana sare u kacay khalalaasaha la xiriira diimaha iyo qowmiyadaha kadib dilkii fanaan Hachalu Hundessa waa tahay Cabdiqaadirow isla wararkaas markaynu egno khasaare intee la eg ayuu geystay khalalaasan Kowsar guud ahaan gobolka Oromiya waxaa tan iyo talaadadii lagu dilay 81 qof oo ay ka mid yihiin 3 sarkaal oo booliska gobolka Oromiya ka tirsan sida uu BBC-da u xaqiijiyay afhayeenka dowlad goboleedka Oromiya hase yeeshee Kowsar waxaa la saadaalinayaa in tirada ay intaasi sare uga sii kici karto sababtoo ah waxa isbitaalka ku jira dhaawacyo xaaladoodu aad u liidato dhanka kalena magaalada Addis Ababa ayaa arbacadii shalay ahayd lagu dilay 8 qof kadib khalalaaso baahsan oo halkaasi ka dhacay oo ay ka mid ahaayeen bambooyin la tuuray booliska ayaa waxay xabsiga u taxaabeen 10 qof oo ka mid yahay Jawaar Maxamed oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka marka ilaa hadda ma la ogaaday cidda ka dambaysa dilka fanaanka Kowsar ilaa haatan may cadda sababta keentay in ninkaasi la dilo amaba ciddii dishayba hase yeeshee booliska ayaa sheegay inay dilka ninkaasi u xireen 2 qof Hachalu waxa uu dhowaan sheegay in ay soo gaareen hanjabaado ah in la dili doono heesiisa ayaa waxa uu diradda ku saari jiray xuquuqda qowmiyadda Oromada ee dalkaasi Itoobiya
waxaana gundhig u noqdeen mudaharaadyadii socday 2018 horseeday inay burburto dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore. kowsar, dilka fanaanka iyo mudaharaadyada socda ayaa ku soo aaday xilli ay etoobiya ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ku saabsan doorashada ee wakhtigeeda ee laga dibmariyey. waxaa markii hore la filayey in doorashadaasi dhacdo bisha Agost, laakiin waxaa dib loo dhigay wakhti aan weli la cayimin. waxay noqon lahayd doorashadii ugu horeysay ee lagu tijaabinayo taageerada uu haysto Abiy Ahmed tan iyo markii xukunka qabtay sanadkii 2018. cabdiqaadir oo intaadan ka bixin horta waa kuma fanaankan uu dilkiisa horseeday qalalaasahan khasaaraha baangeysta. fanaankan Ujalu lagu magacaabo oo waxaa la dhashay 8 qof oo kale. waxa uuna sanadkii 1986 ku dhashay magaalada Ambo. wuxuu ahaa fanaan heesihiisa u adeegsada kacdoonada ay dhigayaan qowmiyadda Oromada ee dalkaas Ethiopia. waxa uu samaystay dad badan oo cadow ah intii uu ku jiray fanka. Ujalu oo ka tagay 2 caruur ah ayaa maanta oo khamiisa lagu aasay dalkaasi. waxaa la sheegayaa in uu laf dhungashay ku noqday dowlad loo arko in ay wax badan ka bedeshay dalkaas Ethiopia. fanaanka waxaa mar loo xiray arrimo siyaasadeed, wuxuuna yaraantiisii dhaqan jiray lo'da. Ujalu wuxuu sanadihii dambe noqday mid ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee dalkaas Ethiopia, waxaana taageerayaal badan uu ku kasbaday heesihii uu horay u qaaday ee ku aadanaa jacaylka iyo siyaasadaba. Ujalu aabihii oo u shaqayn jiray shirkadda korontada ee magaalada Ambao waxa uu wiilkiisa ku dhiirigelin jiray inuu barto caafimaadka, balse isaga dhankaasi wax niyad ah uma uusan haynin. Kowsar, waa tahay cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. dhanka kale waxaa ka soconaya wadanka Ethiopia, waxaa inoo falanqeeyey Faysal Roble oo ka faalooda arrimaha ee geeska Afrika. waa tahay wararkaas aynu ku guda jirnaaye Faysal wuxuu u waramay Cabdifataax Cagayare. runtii dee dowladdu waxay danaynaysaa in ay gacanta ku qabato rabshada ay isleeyihiin way dhacayaan, maadaama dad badan oo madaxda Oromooda qiimo aad ugula la xiray. marka danta weyn ay ka leeyihin waxa weeye in ay nabadgelyada sugaan, laakiin inay sugayaan iyo in kale aynaan garanayn. xaaladda marka ma sidaabay faraha uga baxday mar haddii militarigii loo yeeray aaway ciidamadii kale ee la dagaalami jiray rabshadaha ee ahayd in madaniga ay ka hortagaan? waa runtaa ciidamo askar badani way jiraan, laakiin waxaad moodaa in dowladdu ay uga dan leedahay in dadka cabsi xooggan la geliyo. marka la arko ciidamadii oo dharkii fatiigooda gashan oo baabayaashii ama gawaarida qufulan magaalada soo gelinaysa, waxay uga dan leeyihiin inay cabsi xooggan geliyaan. sideedabana bilaysku shacabka xidhiir buu la leeyahay, ciidamaduse xidhiir lama leh. talabaad waxay ku tusaysaa in dowladdu ay dareemayso tawaandari xagga public opinionka iyo ra'yul caamka, maadaama ay ciidamadii ay yihiin xoogii ugu dambeeyey la adeegsanayay, in ay gaagaabs iyo niyad jab weyn in dowladda ku yimid baa cad. marka la eego siday wax u soconayaan iyo militarigan haatan wadooyinka lasoo dhigay magaalada caasimadda iyo magaalooyinka kaleba, soo lagama yaabo taasi inay sawir khaldan dirto? actually sawir khaldan bay dirtay. waxaad moodaa in dowladdu ay ka aamin baxday ama ay ku kalsoonaan weyday askarta iyo infin xoogaga saad sheegtay ka hortaga rabshadaha iyo masiibooyinka intii oo dhan inay aamini waayeen. oo ciidamo uu hadda Abiy isagu si toos ah amarka u siinayo magaalooyinkii lagu sii daayay, marka inay cabsi xooggan geliyaan dhalinyarada Oromooda iyo qeyro ay ogyihiin inay xoog leeyihiin, jawaarna aad iyo aad ugu hoggaansan yihiin iyo ragga kale aan la xidhay. aad moodaa cabsida dowladdu inay fooqa isku shareertay. marka dibadbaxyadan ma dilka ninkaas heesaaga ah unbay salka ku hayaan mise waxay daaran yihiin arrimo kale? maya, arrimo aad iyo aad ninka uga culus ayay daaran yihiin. ninka la dilay oo weli aanay caddaynba cidda dishay, waxaad garanaysaa cadho haystay dadka, gaar ahaan dadka Oromooda inay qaraxday. cadhadaasoo ka imanaysa meesha ugu weyn in la dareemayo Abiy inuu nidaamkii federaalka oo loo soo halgamay ka tallaabsanayo. waa kow. laba, Abiy ood moodo inuu caashaq cusub
u qaaday taalooyinkii loo dhistay iyo taariikhdii amxaarada ee dadka guumaysanaysay inuu rabo inuu dib u soo celiyo oromooda iyo madaxda OLF ay aad iyo aad arrintaa uga xanaaqeen si xataa ayna uga xanaaqin waktigii tigreega inay hadda uga xanaaqsan yihiin marka dilka ninka waa arrin iyadu calaamad ah laakiin salka meesha ay ka qurunsan tahay waa siyaasadda abiy uu rabo inuu dalka ku dhaqo iyo tan dambe uu dib u dhigay ama uu awoodii kororsaday inuu sii hayo xukunka isagoo ku sababyoonaya cudurka aafada ah ee hadda dalka haya intaasoo dhan marka isbiirsadaan aad waxaad moodaa in abiy ay aad iyo aad uga aamin baxeen qowmiyadaha kale gaar ahaan oromooda maxaa keenaya in dadkan aanay si nabada u dibadbaxayn oo qalalaaso ay kicinayaan oo weliba hanti dadweyne iyo tii guudba ay baabi'inayaan waxa weeye dibaxbadyadu waa laba walaal midi waxa weeye mid inta fasax lasoo qaatay la habeeyo oo dadka madaxda u taliyaan oo meel gaara la maro ama madaxda xafiisyadooda lagu banaanbaxo kaasi waa banaanbaxa nabadgelyada kana waa gadood waa cadho qaraxday oo la qaban kari waayey marka xataa ninka ay u dootamayaan ama ay u dibadbaxayaan sida jawaar iyo gabre iyo kuwaasoo kale hadda ma amri karaan dadku waa gadoodeen gadoodkana waxaa keenaya cadhooyin isbiirsaday oo markaa ninka la dilay uu noqday qaraf ama kibrid dabkii lagu tuuray dibadbaxyadan haddii ay sii socdaan maxaa dhici kara dhanka dowladda iyo dhinaca kale ee shacabkaba dhowr horta arrimood way dhaceen kow abiy inuu ka baxay xulifadii oromooda ahayd ee kacdoonka dhalisay uu isna awoodda ku qabsaday kuwa waa kala tegeen waana kala dhinteen laba raayul caamka oromo inuu maanta aad iyo aad abiy uga soo horjeedo dad badanna ay soo raacayaan oromooda sida soomaalida iyo dadyow kale ay hadda aad u salugsan yihiin waxaa dhici kara in abiy uu sibibaxada uu galay uu kusii sibibaxoodo in uu la soo baxo calaamadaha kelidii talisnimada oo ah in wax kasta xoog lagu muquuniyo military lagu dayo calaamadii ugu horreysayna waynu aragnaa oo waxa weeye in dadkaa la xidhxidhay xataa amxaarkii xagga muduciga ahaa isna saaka in la xidhay oo isna uu yidhi waxaanu diidanahay kelidii talisnimada abiy ku dhaqmayo in dalka la geliyey xaalad degdega in internetkii la jaray marka waxaasaad arkaysaa oo dhan waxa weeye calaamadaha lagu garto dalku inuu burburayo in amnigu gacanta ka baxay in kalsoonidii meesha ay ka baxday marka wixii hadda ka dambeeya waxaynu arkaynaa gacan military dil dhac iyo burbur dalkaa kusoo biira faysal roble oo ka faalooda arrimaha geeska afrika ayuu kaasi ahaa oo cagayare u warramayay markana waxaa dhowaan soo ifbaxay xiriir cusub oo u bilaabmay jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee somalilan iyo taiwan kaas oo si weyn warbaahintu u hadalhaysay shalay taiwan weli aqoonsi kama haysato caalamka sidoo kale dalka shiinaha weli ma ogolaan inay ka madax bannaanaato haddaba xiriirka u bilaabmay iyaga iyo somalilan waxaa ka digay safaaradda shiinaha ee soomaaliya oo sheegtay inaanay ogolaanayn in cid ay ku xadgudubto madax bannaanidooda haddaba arrintaasi ayaanu la falanqaynay aqoon-yahan cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah bartay ee axmed cabdi waa axmed dheere oo sidoo kale bare ka ah jaamacad ku taala sacuudiga balse haatan ku sugan ee dalka ingiriiska qadka telefoonka ayuu goordhow iigu warramay waad mahadsanta walaal kawsar xidhiirka labada dhinac walaal ay u bilaabmay waxay ku heshiiyeen labada dhinac inay xafiisyo diblomaasiyadeed ay kala furtaan labada dhinac mid walba wadanka kale ka furto xafiisyadaas waxa weeye ayaa labada dhinacba waxay yeelanayaan shakhsiyaad u matala oo u fadhiya oo danahooda ka shaqeeya mid walba iyo dhinaca kale u fadhiyo marka xidhiir hore wuu jiray oo kolley sida la sheegay ilaa bishii labaad sanadkan horaantiisii bay madaxda u sarreysay waddanka taiwan la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan marka waxa keliyan intaan ku dari karanay waxa weeyaan ma aha xidhiidh noociisu yahay aqoonsi buuxa ka la yidhaahdo ma aha isla taiwan markaynu egno waxaan ognahay inaanay weli aqoonsi caalami ah haysan marka maxay kusoo biiran kartaa somalilan xalka marka laga eego kolley waano taiwan ma haysato aqoonsi caalami ah waxa laakiin ay tahay waddan horumar runtii sameeyey xagga dhaqaalaha wadanada ugu horumarsan marka laga hadlo qaaradda aasiya ayay runtii ka tirsan tahay inkastoo aanan waddan madax bannaan ahayn marka kolley dee dhinacyo badan oo horumar ka samaysay hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto beeraha waxbarashada waxaan filan karnaa inay iskala kaashan karayaan iyaga iyo somalilan safaaradda shiinaha ee soomaaliya laftooda tallaabadan way ka digeen marka maxaa laga filan karaa ama saamayn intee la eg ayay ku yeelan kartaa somalilan
والله runtii tallaabadan ay Soomaaliland qaaday waa tallaabo aad u dhiiran waxaana hubaal ah inay Soomaaliland marka horeba sii filanaysay ama ka sii diyaar garowday tallaabo ka iman karsa dhinaca China waayo waxa weeyaan China mar walba ma sahashado ama ma fududaysto arrimaha Taiwan waxa kaloo runtii waqtiga ay ku soo beegmay arrintan ba iyaduna ah ama labada dhinac ay ku beegeen baa ah waqti xasaasi ah xagga Soomaaliland waxay ku beegeen oo arrintan ay saxaafadda iyo caalamka u gudbiyeen kowdii Yuulyo ama kowdii July oo ah maalintii ay ku biireen Soomaaliya 1960gii looga dabaaldegayay Soomaaliya waxaad moodaysaa inay fariin dirayeen xagga Taiwanna waxay ku beegeen isla maalinta kowda July ayaa waxa soo saaray China sharci adag oo xagga nabadgelyada xakameynaya muwaadiniinta waddanka ka tirsan Hong Kong marka labada dhinacba waxaad moodaysaa inay dirayeen fariin aad iyo aad u weyn oo ay ku tusayeen labada dhinac ee ay ishayaan in labadooduba ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan wax kasta xagga China waa run safaaradda China ay ku leedahay Soomaaliya way hadashay si cad waxay u yiraahdeen ma aqbalayno marnaba ma ogolaanayno in la farageliyo ama Taiwan laga gooyo China ama xidhiidh la samaysto sidii wadan loola samaysto cid aanu ka ogolaanayno ma jirto bay yiraahdeen markaan isku soo halka qodobka aan waxay u dhigan tahay China waxa weeye tallaabo ay qaadaysaa hore waxa loogu yaqaanay China ay maaragtay runtiisa hashan arrimaha noocaas oo kale ah waxa jira wadano badan oo ka tirsan Afrika oo markii ay Taiwan xiriir la sameeyay China ay culays saartay ama diblomaasi ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo taasoo dhalisay markii dambe inay wadanadaas ka noqdaan ama ay jaraan xiriirka ay Taiwan la lahaayeen Taiwan wadano badan oo intan hadda aqoonsan oo 15 ah in ka badan baa bariga hore aqoonsi magaranaysa aqoonsan jirtay laakiin imika waxa ku soo urureen 15 wadan oo runtii ah wadano aad iyo aad u yar waan saameyn badan ku lahayn adduunka cidda xiriir sidan oo kale la yeelato Taiwan ee aan Shiinaha u soo marin xeerka caalamiga ah maxay uga dhigan tahay marka haddii xeerarka caalamiga loo eegi lahaa ama jamciyadda qodobada ka dhaxaysa China-hu ka dacweyn lahaa Soomaaliland kama tirsana halka sida daraadeed waxa weeye runtii wax saameyn imika yeelanaysa ma jirto laakiin waxa la filan karaa inay dawladda Soomaaliya ama dawladda federaalka ay arrinka iska kaashadaan tallaabooyinka uu qaadi karo way farabadan yihiin waxa ay noqon kartaa sidaan hore u sheegay inuu xiriir la sameeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya halka ka bilaabay wax ka cadaadiyo ama wadanada Soomaaliland xiriir kala la ahlaba inuu u soo maro mid diblomaasi iyo mid dhaqaale buu noqon karaa waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Axmed Dheere oo ah aqoonyahan cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah bartay sidoo kale baraka ah jaamacad ku taala Sacuudiga oo ii waramayay Afrikada bari saacadu waa 5 galabnimo iyo qadar 22 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa maanta sheegtay in mas'uuliyiinta dalka Djibouti loogu baahan yahay inay si dhexdhexaad ah u baaraan eedeymaha sheegaya in si xun loola dhaqmay duuliye ciidan oo u xiran dowladda dalkaasi iyo in la mariyo hanaanka saxda ah ee uu xaqa u leeyahay mas'uuliyiinta dalkaas ayaa mamnuucay dibadbaxyo nabdoon oo ka dhashay xariga ee duuliyaha faarax lamaane ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya Human Rights Watch waxa ay sheegaysaa in Fuad Yusuf Cali oo ahaa duuliye ka tirsan ciidanka cirka ee dalka Djibouti weli uu ku xiran yahay xabsiga Gabood iyada oo xarigiisa ay banaanbaxyo ka dhasheen maamulayaasha Djibouti waa in ay si buuxda baaritaan ugu sameeyaan eedeymaha ah in Fuad si xun loola dhaqmay ayna xaqiijiyaan in la dhowray xuquuqdiisa aasaasiga ah sida waxa yiri Leticia Bader oo ah agaasimaha Afrika ee hay'adda Human Rights Watch waxaana inta ay raacisay in xukuumaddu aanay kiiskan u adeegsan marmarsiyo ay ku caburiso dibadbaxyada lagu dalbanayo sii deyntiisa ee gaar ahaan dhacaya xilliyada ka horeeya doorashooyinka ehelada Fuad waxay u sheegeen Human Rights Watch inuu doonayay inuu magangelyo ka raadsado wadanka Ethiopia balse si degdeg ah dib loogu soo celiyay Djibouti kadibna xabsi kali ah la geliyay jeelka Gabood iyada oo aan loo ogolaan inay soo booqdaan qareen iyo qoyskiisa waxa kale oo Human Rights Watch ay weydiisatay Ethiopia inay tahay inay baaritaan ku samayso bal in maamulayaashu ay xurmeeyeen xaqa uu Fuad u lahaa in la siiyo magangelyo saddexdii bishaanu soo dhaafnay ayaa Fuad waxa uu sii daayay
filim video ah oo isagu uu iska soo duubay isagoo markaa jooga halkii uu ku xirnaa oo uu tilmaamayay duruufta adag ee haysatay iyo cudurro maqaarka kaga dhacay fiidiyowga ayaa waxa uu sababay caro dhalisay dibadbaxyo ka dhacay Djibouti iyo magaalada labaad ee dalka oo ah magaalada Cali Sabiix. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in hore ay u jireen kiisas la xiriira siyaasiyiin xabsiga gabood lagu xiray oo qaarna halka ay ku dhinteen sida Maxamed Axmed oo ahaa siyaasi mucaaradka ka tirsan oo xabsiga xanuun dartii ugu geeriyooday sanadkii 2017. Dowladda Djibouti waxa ay ku gacan sayrtay in si xun loola dhaqmay Fuaad waxaana ay ku tilmaantay in duruufta oo dhan ay tahay mid uu jilay. Human Rights Watch waxa dowladda Djibouti ay ka dalbatay inay dhiirigeliso xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan in la ixtiraamo dibadbaxyada nabadeed, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda maxaabiista. aad buu u mahadsan yahay Faarax Lamaane markana ciyaaraha haddii aan eegno tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa sheegay in ciyaartooyga afka hore ugu dheela kooxda ee Pierre-Emerick Aubameyang uu saxiixi doono qandaraas cusub kadib markii uu noqday ciyaartooygii ugu horeeyay ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League u dhaliyay 50 gool. ciyaartooygan ee 31 jirka oo sidoo kale afka hore u ciyaara xulka Gabon ayaa dhaliyay 2 ka mid ah 4 gool ee ay xalay Gunners uga adkaatay kooxda Norwich. qandaraaskiisa ayaa hadda ku eeg dhamaadka xilli ciyaareedkan 2020 iyo 2021 waxaan filayaa inuu muddo dheer joogi doono halkan ayuu yiri tababare Mikel Arteta oo waraysi siiyay BBC-da qaybteeda ciyaaraha. waa hagaag barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad degeysanaysaan markana shirkadda World Remit ayaa ku dhawaaqday daahfurka adeegeeda xawaaladeed ee Soomaaliya sida laga soo xigtay bangiga adduunka. qiyaastii 1.4 bilyan oo dollar oo lacag xawaaladeed ah ayaa loo soo diraa Soomaaliya sanadkii oo ay soo diraan Soomaalida qurbaha. xawaaladan oo in ka badan 23% wax soo saarka guud ee wadanka ah waxa ay kaalin muhiim ah kaga jirtaa horumarka iyo nolosha dad badan oo Soomaali ah si ay u helaan cunno, hoy, waxbarasho, adeeg caafimaad iyo si waditaanka ganacsiyadooda yaryar. Soomaalida qurbaha ku nool waxa ay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qaadashada kaas oo muddooyinkan dambe sii wiiqmay saameyn ku yeeshay fayraska corona awgii. agaasimaha geeska Afrika ee shirkadda World Remit Ahmed Tani ayaa iiga waramay bal sida ay u shaqeynayaan iyo howlgalkoodan cusub. waxaan faraxsanahay inaan maanta daaha ka furno shirkadda World Remit ay daaha ka qaado in adeegayga xawaaladeed ee Soomaaliya la bilaabo oo lacagtii loo soo diri karo taasoo fursad u noqon doonta Soomaali badan oo qurbaha ku noolay inay si fudud oo degdeg ah ugu soo diri karaan lacagihii Soomaaliya ayaan maanta aan daaha furnay. marka adeegan ma wuxuu ku kooban yahay magaalooyinka waaweyn oo kaliya mise sidoo kale magaalooyinka kale ee Soomaaliya oo dhan baan ka bilaabaynaa oo laga heli karaa oo waxaana lacagta laga qaadan doonaa xarumaha dahabshiil oo in ka badan 200 laamood ku leh Soomaaliya. waxa kale oo iyaduna aanu dhawaan daaha ka qaadi doonaa adeega mobilka in lacagta lagu qaadan karo. dadka aanan fahansaneen World Remit waxay tahay bal sharaxaad kasi. waa shirkadda World Remit waa shirkad caalamiya oo ku shaqeysa habka digitalka ah hogaaminaysana dhinaca digitalka lacagaha la isku diro. waxaanu ka soo dirnaa lacagta in ka badan 50 wadan waxaanan u soo dirnaa in ka badan 150 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto. marka World Remit qofku marka uu lacagta ka soo dirsanayo qurbaha jooga waxa uu isticmaalayaa applicationka mobilka gacantiisa ama website-kayga mareegta worldremit.com isagoo aqalkiisa jooga ayuu lacagta ka soo dirayaa lacagtiina si degdeg ah ayuu qofku uga helayaa Soomaaliya. adeegaasaan maanta u daah furnay oo u sahlaya qofka Soomaaliya joogaana inuu si degdeg ah uga qaadan karo xarumaha dahabshiil mobilkana aan dhawaan bilaabi doono. hadda la idinma yaqaan oo dhulka Soomaalida waad ku cusub tihiin marka sidee dadka ku garan karaan in lacagtoodii la soo mariyay World Remit? xawaaladu waa xawaalad weyn oo 10 sano u dambeeyay adduunka ka shaqeynayso caalami noqotay oo Soomaaliduna aad u taqaano aadna loo sugayay baahi weyn oo ka jirtay Soomaaliyana aanu isku daynay dhowr jeer inaanu bilowno haddana ay noo suurta gashay inaan hawsha bilowno oo cid kasta ay ka dheregsan tahay xawaalada habka ay u shaqeyso oo ah hab aamin ah oo degdeg ah oo u sahlayo qof kasta isagoo aqalkiisa jooga inuu si digital lacagta u diri karo Soomaaliyana ay ka mid tahay. marka waxa weeyaan waxay keenaysaa inay hawshaasi hadda wax dhibaato u arki karaan ma jirto oo ay ka dheregsan yihiin baan u malaynayaa waanay ka heli karaan adeegan wax badan oo ka haqabtiri doona wax badan oo maanta
soomaalida looga baahan yahay maxaa ka mid ah marka waxyaabaha ay dadku adeegan ka faa'iidayaan waa tan hadda lacagaha xadidan waxay ka heli doonaan walaal habka soomaalida qurbaha joogta habka ay lacagaha u soo dirsan jireen waxay ahayd hab ku salaysan lacag qabashada wakiilada kaas oo intan dambe wiiqmay saameyn weyn oo ku yeesha xanuunkan covid-19 marka waxay u sahli doontaa Soomaali badan oo lacagta soo dirsanayso qurbaha ku nool inay si degdeg ah oo fudud iyagoo adeega warrimadu isticmaalaya ay u soo dirsadaan habkan digitalki wuxuu meesha ka saaray gacantii dhexe waxaan u sahlayaa in qof kasta oo adduunka ku nool oo ay ka mid tahay kontonka gobol ee Mareykanku inay lacagta si fudud ku heli karaan marka xawaaladan maxay kaga duwan tahay xawaaladaha kale walaal waa xawaalad digital ah oo ku shaqeysa habka digitalka ah waxaana xawaaladu habka u shaqeysa ay tahay hab financial inclusion la yiraahdo ama ah in aanu la shaqeysano shirkadihii kale ee financialka adduunka ka shaqeynayay oo lacagta noo bixiyaan anagu lacagtana ay noo qabtaan marka waa hab ka degdeg badan oo ka fudud oo qofku isagoo mobilkiisa isticmaalaya aqalkiisa jooga oo lacagti ka tirsan karo waa hab shaqeynaya 10 sano u dambeeyay oo dad badan oo adduunka ku nool ay si uga faa'iideysteen waana imikana ay u suurtagelin doonto Soomaaliya ku nool inay si degdeg ah u helaan lacag kaasi waxa uu ahaa agaasimaha shirkadda World Remit waa geeska Afrika ee Axmed Tani oo ii waramayay markana intaanan u gudagelin barnaamijkeena salaamaha dhinacyadii isku haya Falastiin ee Xamaas iyo Fatah ayaa ballan qaaday inay u midoobi doonaan inay ka hortagaan suuragalnimada ay Israa'iil ku doonayso inay ku qabsato shir jaraa'id oo dhif ah oo ay wada qabteen ayaa labada dhinac waxay ku sheegeen inay sameyn doonaan wax walba oo laga maarmaan ah si ay wada shaqeeyaan ballanqaadyo la mid ah kuwa ay hore u sameeyeen ayaa guul dareystay inay xal u noqoto kala qaybsanaantooda dowladda Israa'iil ayaa hore u sheegtay inay bilaabi doonto dib u habeyn ay ku sameynayso daanta galbeed sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin qorshuhu wuxuu u muuqdaa inuu joogsaday waa tahay intaa ayaan uga baxaynaa xubintii ugu horeysay ee barnaamijkeena dunida iyo maanta markana waxaan u gudageli doonaa qaybta labaad waa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah inta u dhaxaysa 5:00 iyo 6 maqribnimo meel walba oo joogtaan waxaan idin leeyahay dhegaystayaal galab wanaagsan oo wacan barnaamijkeena waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah waa tahay heestaas oo dhammaystiran waad dhegaysan doontaan barnaamijkeennii muusiga iyo salaamaha ayaanu u gudagalaynaa markan barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aanu ku bilaabno warqadda ugu horeysa ee barnaamijkan ugu talagalnay warqadan waxay u qoran tahay sida tan anigoo ah Ibraahim Aadam Xaashi oo jooga magaalada Nairobi waxaan halkan salaan qiimo badan hawada u marinayaa waa salaan dabcan wax badan baan barnaamijkeena waxaan ku bilaabnay dhalasho meher maanta waa salaan hooyo macaan cabdiyo macalin mursal aabe aadam xaashi abooy cismaan aadam xaashi abooy cumar aadam xaashi abooy suleymaan aadam xaashi abaayo canab aadam xaashi abaayo maryamo aadan xaashi abaayo daahiro aadam xaashi eedo naado xaashi aadam iyo habaryar ubo ayaa qoran ee macalin mursal iyo dhammaan inta magacayga garanaysa ee ku nool deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayuu leeyahay gaar ahaan ee degmooyinka Gura Damoole Goro Baqaaq iyo tuulada Tutow ee aan ku dhashay ayuu leeyahay dhageystahan waa tahay waxaan filayaa dhammaan inay ku maqlayaan walaalaha iyo waalidkaaga ee aad salaanta hawada u marisay warqadda xigtaan soo qabanaya waan ku salaamay daadiyaha barnaamijka Sacad Maxamed Daahir
oo jooga Dhoqoshay waxaan halkan dhambaal meher wacan ka diraya ayuu leeyahay saaxiibada kale ah علي عبد عبد الله علي عارف سعد محمد داهر أحمد عبدي كاهن يا شافعي آدم محمد حسن محمد دعس إمعان جامع محمد علي عيدي جامع عبد القني أحمد محمد بيحي مدر سليمان جامع أحمد حسن محمد عبد الله عنكر مصطفى الناصر عبد الكريم يا وليبا مولا محمد داهر هيبو محمد درير عبد الشكور علي محمد قربه لما أنتوا توحى دنبال مهر وعن أي ودريان لما أنا قرنق أيال لي هيوا إبراهيم عبد الساق دوستي iyo marwadiisa hoodo Axmed Maxamed oo 2 July oo maanta ah meherkoodu ka dhacay magaalada Burco waxaan leenahay isku waara wiiliyana gabar iyo hee $1 misaano waa tahay warqada labaad ee barnaamijkeena ay ahayd markana waxaan wada dhageysanaynaa heesta ee koowaad ee barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha هي اسمي وروسكاغن دليانو كعياتي ساعة شنيا دقيسو كفكاغ عراوا كدعيا اسمي وروسكاغن يا سعكينا بفتحنا بودا يا دوقي ومش حدا سودا عدك فوق اللي الشهاد ودا ثاني دبو فيرسو هيدي دبو فيرسو هيدي دانسدي يا سعكينا قبلها نبودا يا مش حدا دودا كوكو الشهاد ولا ثاني waa tahay dhererka iyo jooga iyo muuqa ma aanan aragay uu leeyahay dhamays quruxay midaan ku dhigo waa tahay waa fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta aroos halka ayaan uga bixinaa barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha ayaad ula dhageysanaysaan halka aad kala socotaana waa BBC laanta af Soomaaliga markana warqada xigta waxaan halkan
hambalyo meher wacan oo farxad leh uga diraya ayuu leeyahay waa faarax bashiir oo jooga garowe saaxiibkay cabdixakiin sheekh maxamed iyo marwadiisa ayaan sheekh xasan oo uu meherkooda ka dhacay magaalada baabili oo ku taala duleedka magaalada jigjiga ee dalka Itoobiya taariikhdu markay ahayd 30 bisha 6 ee sanadkan waxaan leeyahay barakallahu lakuma wa baraka calaykumaa wa jamaca baynakumaa fil khayr luqadda carabiga ayaana lagu soo qoray aad buu mahadsan yahay warqadda xigtaan u gudbaya assalaamu calaykum ayaa la leeyahay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa daadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha waa aadan nuur haajir oo ku magac dheer DJ wadani oo jooga Dadaab ee dalka Kenya waxaan halkan ka salaamayaa ayuu leeyahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa labadeeda waalid oo kala ah aabe nuur haajir iyo hooyo khadiijo aadan iyo walaalahayga ayuu leeyahay oo kala joogaan dalka iyo dibadaha oo kala ah farxiyo nuur haajir maxamed nuur haajir zamzam nuur haajir ifraax nuur haajir naciimo nuur haajir sureeqo nuur haajir cabdirasaaq nuur haajir muscab nuur haajir iyo shukri nuur haajir iyo wali nuur haajir iyo waxaan halkan ka salaamayaa dayaashay iyo adeerada uu leeyahay qaali deek idris xasan galti عمر صالح وكم قاعدير دعرب بوله واتهاي عثمان بيت رود بوي جابر يلا قبضا نجعل هاي عبدي حسن محمد يا أحمد عبدي هل كان تهنيات كل يلا شوكو بكرين هم بليا ودي ريا يلي هاي دمان عبدي مهد محمد بشير يمروديسا كوثر محمد علي وابن حي oo ku aqal galay dalka Kenya qaasatan xirada dhagaxley uu leeyahay waxaan leeyahay Allaha isku kiin barakeeyo oo wada khayr qabo Allaha idin kala siiyo caruuska iyo caruusada ducada waa dhankiina asxaabta ee daadihinaya ayuu leeyahay Kawthar iyo dhammaan bahda BBC walaal aad baad u mahadsan tahay waxaan leenahay isku waara noqda kuwii caruur wanaagsan kale helo barnaamijkeeni muusiga iyo salaamaha iyo warqadihii ayaan eegayaa dhanka Facebooka ayaana inta badan barnaamijka eegayaa dhageystayaasha halka fariimahooda inoogu reebay haddii aad doonayso adigana dhageystay inaad ka qayb qaadato barnaamijkan halka barta Facebook aan ku leenahay ee BBC News Somali halka ayuu barnaamijku ku daawacan yahay comment ahaan halka hoose waad inoogu reebi kartaa dadka aad jeceshahay inaad salaantid ama aad u marisid hawada hambalyada waa tahay warqadda xigtaan soo qabanaya tahniyad dhalasho oo farxad leh waxa diraya la leeyahay raxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo saygeeda cabdi bilaa cabdi hooyo madow maxamed aabe ibraahim maxmuud faadimi ibraahim xaawo ibraahim seyna ibraahim iglan bashiir hooyo muslimo cabdiraxmaan aabe maxamed cali injineer borow kamaas falastiin dhammaan asxaabtan tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan la leeyahay nasteexa maxamed cali iyo cabdirasaaq ibraahim oo wiil ugu dhashay degmada Kurtun Waarey oo ka tirsan shabeellada hoose wiilkaas waxa loo bixiyay Muscab Cabdirasaaq Ibraahim ducada waa dhankiina wiilka yarka waxaan leeyahay eedo hawryar soo barbaaray noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca barnaamijka dhalashada markaan eegno warqadii ugu horeysay ee gacanteeda soo gasho oo dhalasho ah waa tahay markana waxaan eegaynaa dhanka isla kaalmaha sugaanta barnaamijkeeni muusiga iyo salaamaha waa heestii fanaanka weyn ee cawaale aadan dhegeysi wacan ayaa idin leeyahay وخير قرآنه وحي قلبه علامي مال العرى لغينه عربي وفرح لعاديستي
ciida adiga dhashiyo yowmal carrafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay ayamaha cisiga le ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahayno cafiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carrafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku taalaha sadkuu caadilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu xogan carshigay ku tahalaha sadkuu caadilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu xogan dumar calmaday way cuddoon tahay ama taa haddaan cuniyo caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntamay iyo gobnimo caadilkuu dhaliyeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay waliba miduu dumar calmaday way cuddoon tahay ama taa haddaan cuniyo caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntamay iyo gobnimo caadilkuu dhaliyeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadkuu caadilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu xogan carshigay ku tahalaha sadkuu caadilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu xogan waa tahay halka aan uga baxno heestaas ee cawaale aadan ee carafo barnaamijkeeni muusiga iyo salaamaha ayaan ku guda jirnaa markana waxaan soo qabanayaa warqadaha xiga ee barnaamijkeena muusiga ugu horeyn waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha walaal waa ku salaamay waa cabdixareed maxamed haaruun oo ku sugan degmada luuq ganaane oo ka tirsan gobolka gedo ayuu leeyahay waxaan halkan salaan qurux badan islamarkaana malabka ka macaan caanaha ka cad miskigana ka udgoon uga dirayaa miski wax ka udgoon baa jirashow
sida uu sheegayba warqadda waxaa ku xardhan ubaxiyo astaan jacayl maasha allah talow yaa la salaamayaa soo qabto wuxuu leeyahay dhammaan dhallinyarada ururka horumarinta waxbarashada ee ka dhisan degmada luuq ganaane cabdiweli maxamed axmed shadaad xasan cusmaan iyo axmed biriq faarax iyo cabdixareed macalin haaruun sucdi cabdulaahi cumar nasre faarax isaaq iyo fawsiye cabdirashiid bilow waxau leeyahay kuwa oo maalmaha xorriyadda la soo baxay bandhigyo cajiiba runtii run ahaantii waa urur midoobay ayuu leeyahay oo is-abaabulay isku fikir ah taariikhdu waxau leeyahay iyada isqorayse waa tahay warqadaas quruxda badanna halkaa aan uga baxo xuseen axmed shakra oo jooga degmada qoryoole waxau leeyahay isna halkan waxaan ka salaamayaa ugu horeyn daadiyaha barnaamijka waxaa kale oo aan jeclahay inaan salaan hawada u mariyo faamilkayga asxaabtayda iyo cid kasta oo aanu magac iyo muuqayga taqaano uu leeyahay jimco wanaagsan aan ka gudbo warqadda xigtana magacaygu waa ayaan axmed garle oo joogta kenya gaar ahaan nairobi waxaan halkan ka salaamaya bayd leedahay hooyaday macaan fawsiyo iyo walaaladay aan jeclahay duni meel ay kala joogaan ilmo axmed garle adiguna waxaan ku leeyahay kawsarey salaan wacan iyo dhammaan bahda b b c waa tahay warqadda xigta badri cabdulaahi oo jooga boorama oo ku salaamay uu leeyahay marka hore dadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha indhow marka xigtaa waxaan halkan aniga iyo xaaskayga yaasmiin xasan jaamaca hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayna ayuu leeyahay boqorka iyo boqoradda faraska iyo faraantiga lamaanaha kale ah cabdi maxamed haaruun iyo marwadiisa nimco farxiye cabdi oo taariikhdu markay ku beegnayd 28 bisha 6 ee sanadkan meherkoodu ka dhacay magaalada boorama sidoo kale waxaan hambalyadan dirayaa uu leeyahay dhammaan asxaabta aan ku bahownay bogga b b c Soomaali waxaan leeyahay noqdo kuwa isku waara oo u wada khayr qaba kala hela aamiin waa kuwa is aroosay barnaamijkii muusiga iyo salaamaha ayaan weli bartan kaga jirnaa aan iraahday qaybihiisii dambe ayaan ku guda jirnaa warqadda xigta aan soo qabto ayaan le maxamuud warfo oo jooga magaalada boorama isna wuxuu leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa daadiyaha barnaamijka waxaa sidoo kale halkan salaan sharafeed uga dirayaa hooyaday macaan waa caasho muuse abraar caasho baar aabbahay maxamed warfo iyo walaalahay fawsiya maxamed maxamed farxiyo maxamed maxamed iyo khadra maxamed maxamed iyo raaqiye maxamed maxamed dadkan oo jooga dhammaantood magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaan sidoo kale salaamaya u leeyahay qaraabadayda asxaabtayda iyo sidoo kale ciddii magacayga iyo muuqayga taqaan ilaa iyo hadda gabar nooma dhalan hal wiilaa noo dhashay maanta warqadihii ayaan weli gacanta ku hayaa oo waxaan sugayaa gabar inoo dhalata laakiin ma arko meherkiyaa badan maanta iyo salaamaha dadkii kala baaday isu xiisay isu hamuun qaba isjecel yaa waxaan leenahay inta isjecel allah u soo dedejiyo allah khayr uga dhigo inta hadda isqabta sidoo kale ilaahay khayr ha ka dhigo guurkooda barnaamijkii muusiga ayaan ku guda jirnay bal markana dhanka kaalmaha sugaantaan ku laabanno heesta xigta waxaan ugu talagalnay dhalinta ama jiilka cusub ee hadda waa nimcaan hilaac dhegeysi wacan
furtay buu kaloo bartay noloshii cusbay waxay furtay buu kaloo waxbaase kay badan ka baxay hawadii adkay ka baxay hawadii adkay waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqo dhalay waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqo dhalay waxaa batay guulihey qof dhiigani baaji jiray waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqo dhalay waqtigu bari buu adkaa hadduu safar waaqo dhalay waxaa batay guulihey qof dhiigani baaji jiray urqadeen wabiyaal xunaa jacayl xuni waa baneen urqadeen wabiyaal xunaa jacayl xuni waa baneen karaystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay karaystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqadeen wabiyaal xunaa jacayl xuni waa baneen urqadeen wabiyaal xunaa jacayl xuni waa baneen karaystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay karaystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay karaystay bukaanadii ee baraarugay oo ilbaxay ayuu leeyahay fanaankaasi axmed nimcaan hilaac waa tahay gunti iyo gunaanadkii barnaamijkeenu soo gaarnay warqadda ugu dambaysa akhrinaya kadibna barnaamijkii intaa ayaanu kusoo gabagabayn doonaa warqadda ugu dambaysa dhegaysta jooga jabuuti ayay naga soo gaartay waxaa la yidhaahdaa cabdifataax xasan maxamed wuxuu ku magac dheer yahay caga yare wuxuu leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa daadihiyaha barnaamijka kawthar indho iyo cabdirasaaq waa tahay dhammaan asxaabta b b c na waan salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa magacayga iyo muuqaygaba inta garanaysa waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday madiine cali aabe iyo xasan maxamed iyo zakariya xasan luqmaan xasan iyo cabdirashiid xasan hibe xasan iyo xaawaruun xasan waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan waa mahadsan tahay barnaamijkii inta aynu kusoo gabagabeynaynaa warqadaas ayaa inoogu dambeysay nasiib daro waa ka xumaay maanta barnaamijkii waxaan soo gabagabeeyey iyadoo gabarayno dhalan hal wiiloo keliya ayaa intii warqadaha soo dirtay hal wiil ayaa markaa dhashay waxaan leenahay dhammaan inta dhegeystayaasha kale ee warqadahooda ama farrimahooda aan na soo gaarin waa inoo khamiista xigta insha allah barnaamijkan lamid a intaanu ku kulmi doono barnaamijkan dunida iyo maanta guud ahaan waxaa soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbiil iyo sidoo kale cabdirahde cabdiqaadir yuusuf anigoo ah kawthara maxamed cabdulaahina waan idinla socodsiinayay markana aan idinku duwo heesta ugu dambaysa barnaamijkeena dib intaan hawada ugu kulmi doono 7 aroornimo ee berri waxaan idin leenahay dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo